مدن مدحويني waxa salaanta loo diyaara cutubya ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya taliska aaga bari ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow Bismillahir Rahmanir Rahim aad baan u salaamayaa ciidanka qaranka meelu joogaba iyo jiida hore aaga bari xaruntiisa oo aan maanta joognana aad baan idin salaamaya waa marka koobaad waxaynu isla qirsanahay adduunkuna uu qirsan yahay noloshuna ay si cad u tilmaamaysaa bini'aadmiga meelu joogaba qaranku haddii aanu lahayn ciidan adag oo cadowga daafaca inuu qarankaasi yahay hilib bisil oo bisaduhun cuni karaan iskaba dhaaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu u diraa oo uu dhibireeyaa ma adduunka oo dhan waxaa la ogyahay horumarka oo caalamku sameeyo marka hore waxaa lagu sameeyaa meel nabada oo dayr adiga ku xidhan yahay ciidamadu dal kasta iyo adduunkaba waxay yihiin dayrka adag ee ummad kasta halka ay joogto bahalaha ka ilaaliya ee cadowga ka qabta mar labaadka tiknoolajiyada adduunka u horumartay oo dhan boqolkiiba 80 waxa soo saaray oo hal abuuray ciidamo may abuurin dad shacibihi tijaabo kasta oo adag oo la tijaabiyo ilaa dayaxa la dagayo ilaa cilmiga maamulka ee maanta adduunka lagu maamulo ee looga baxa kuliyadaha PhD lagu qaatayna waa siyaasadda iyo waa maamulka dhammaantood waxaa laga soo dheegay waaya aragnimada ciidamada iyo caalamka iyo dalkooda ciidan waliba inay u dejiyeen wax laga dhaxlay oo ah cilmi dhan walba saameeya science iyo maamul iyo hab dhaqaalaba ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aan qiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqo ah iyaga oo aad dawlad aan la ixtiraafsanaan oo dagaal dheer halgan dheer oo isna ka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore wax dhisano oo aan meel istaagno in cadowgii aanu maalin qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markhaati madoona ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeysay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u halgamaya iyo kuwiina maanta xilka culus qaranka u hayaba dhammaantood waxa la qirayaa inay yihiin haliyeeye noloshooda u hibeeyay inta kale inay nabad gasho oo hore u marto oo dadka in yar yeeri karto idinka waanin maayo rag halka jooga doolal baa kamid ah oo isku daahaan isku dhowrahay 40 sanana isagoo da'daasa isaga rag badan oo kale oo halka taagan oo hebel badana dhammaantood ay dib jir kala ahaayeen oo ay qaranka u taagnaayeen oo aanay malaha maalin oo dhan xanuunsanaya meel baan tagaya mujaahidiinta waxa faraysan inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliya dawlad xor ah oo aanay ka daba qaybinayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daalayno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u danaynaya in kuwa aqoonta aabashad ku dhinteen idinka horeeyeen nin daryeelaya kama daalayno وهؤلاء لهاي دين دري نقاس كرجال هاي ما ودري وكرتي هذا الشيء ده القرآن هو وضع خذار علماء دين وقتها هاي
inta badan waxaa ku soo noqnodaa inta badani waxaa ma garanayaan inta badani ma fahmayaan inta badani ma fikirayaan inta fikiraysa waa inta danta qaranka meelu ka difaacaba ka difaacaya ama cilmi ha ku daafaco ama xoog ha ku daafaco ama arrin ha ku daaface haddaa intiiba koobsateen oo dadkii fidiye maamulka ahaydeen dadka heshiisiye ahaydeen kuwii naftooda huray ahaydeen maantana intaynaan halkaa yoolkeennaa gaadhin wixii caqli leh wixii wadannimo leh wixii garasho ilaahay inuu ku abuuray wuxuu heegan u ahaanayaa difaaca qaranka ilaa aanu yoolkaa gaadhno markaa geedigii halganku wuu socdaa mana istaagaya ilaa aynu guusheena gaadhno aad iyo aad buu ciidanku idinku dhaadanayaa waxaad ka dareentaan maanta 10 sano ka hor 10 sano ka hor dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxda iyo kuwa suuqa jooga kumay xaragoon jirin oo kumay faari jirin inay askari noqdaan maanta inanka iska dhaabay gabdhaha jaamacadda ka baxaya waxay diyaar u yihiin inay qori qaataan oo ciidankooda daafacaan waana tababar iyo aqoon iyo daljacaylnimo dadkiina gaarsiiseen waxa hubaala oo halkan ay fadhiyaan haddaan aabbayaasheeda weydiiyo inaa u badan tihiin kuwii aabbayaashood naftooda dalka u hureen ee awoyaashoodu hureen haddaan boqolkiiba idin weydiiyo waxaa laga yaabaa boqolkiiba 50 inay kuwaa yihiin waa sababtaan u leeyahay ilaahay dadka qaar buu u diraa inay naftooda huraan dalkooda kuwa kale ku noolaadaan inta kale maxaa ku waajiba Soomaaliland waxa ku waajiba Soomaaliland kalena inay caqligooda iyo maankooda geliyaan kuwa nolosha raaxada la jecel kuwa qoyskooda qura ka fakira kuwa lafahooda qura la carara in aanay noloshaasi soconayn ee ay ka soo qayb qaataan qalbi iyo quwad iyo cudud iyo codba kuwa naftooda u horeeyay isla garab taagaan هذا دجالكم مركو صعود دجالكم ودجال إلا جوش الجرام ما دبعضه قبل بنا قبل مالي وحويكوا جاراني قبل يرقوا مالي وحكر عني ما ها وحلينا هذا وحوارعي قاد كروك كان عدونا كوا كان نقاري دونا إلا أي نقارنا السومالي لا دور دن قرن مدي نحن كيلو تيلا هلنا تاسن وضنا وحردكوهم بريين يا كيسجا وحردكوهم بريين يا نفتينا أو سين قرن كوده waxaanu habaryeeraa in maanta dadkiina ay gaarsiiseen in ciidamada qaranka igu dar oo dhammaan dhalinyarada maanta dalka joogtaa nin waliba uu deydaayo meeshii uu ka galaa ciidanka qaranka hadduu jaamacad ka baxay iyo hadduu farsamo yaqaan yahay hadduu xoolihiisa raacanayo waxyaalaha maanta cadowga huwanta ay soo raacinaya waxaan uga jawaabayaa nin baa gabiyo wuxuu yidhi mar haddaan cududayda ku ciilbaxi karaayo mar haddaan cagahayga ku caraabi karaayo mar haddaan carabkayga colaadda ku dhaafo waxbay hay calacalin Soomaaliya taasay leedahay maanta aad iyo aad baan kuma hadaqaynaa waad ku dhaadanaynaa waana dhiirigeliseen dadkiina waa daba joogaa wixii qalacdana waa saxanaynaa cadowgeena in kasta ay soo ururiyo inagu ma ka adag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh